ay ahayd kow in wariyaasha Soomaaliyeed loo sheego in marna aysan dhexdhexaad ka noqon difaaca qarannimada Soomaaliya. labo in dawladda Soomaaliya iyana loo sheego fududeynta xogaha si wariyuhu uusan u sheegin xog qaldan. kulanka oo xogaha la isku dhaafsaday ay ku qotomeen garab istaaga qarannimada Soomaaliya ee wariyaha sida hadda xaaladda taagan ee dawladaha Soomaaliya iyo Kenya. war-saxaafadeed lagu heshiiyay oo danaha qarannimada Soomaaliya ilaalinaya marka dawlad kale fooda la isdaro ayuu akhriyay Aweys Xaaji Nuur oo wariyaasha kulankan ka qayb galay ka tirsan. kow in wariyaasha Soomaaliyeed aysan dhexdhexaad ka noqon karin qadiyada la xiriirta difaaca dalka. tan labaad in wariyaasha Soomaaliyeed ay iska hubiyaan xaqiiqda wararka ay daabacdo warbaahinta Kenya oo ay soo xigato warbaahinteena Soomaaliyeed. saddex laga bilaabo maanta in warbaahintu aysan adeegsan ereybixinada qaar oo ku qaldan arintan taasoo aan tusaale ahaan soo qaadan karno ereyga ah muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. taas bedelkeedna aan isticmaalno badda Soomaaliya ee Kenya ay muranka gelisay. qodobka afraad in wariyaasha Soomaaliyeed ay ka feejignaadaan tabinta wararka aan caawinaynin nabadda iyo wada noolaanshaha. qodobka shanaad ee warmurtiyeedka ku jira waxa waaye in la sameeyo barnaamijyo iyo wareysiyo joogto ah oo laga qayb gelinayo dadka indhaha u ah bulshada Soomaaliyeed sida sharci yaqaanada. qodobka lixaad in dawladda Soomaaliyeed ay wariyaasha siiso xogaha muhiimka ah ee jira iyada oo abuuraysa bar lagu soo hagaago xogaha ku saabsan arrimaha badda si looga fogaado in xog been ah ay bulshadu gaarto. qodobka toddobaad oo ah qodobka ugu dambeeya warmurtiyeedkeena waxa waaye in si qoto dhow loola socdo saxaafadda adduunka waxa ay ka qorayaan gaar ahaan qadiyada Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxaysa. kulanka waxyaabaha la iska afgartay waxaa ka mid ahaa inaan marna dhexdhexaad laga noqon jiritaanka iyo difaaca waddanka iyo in laga fiirsado baahinta wararka ay qoraan warbaahinta dalka Kenya. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.